الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهده ونقوم مهدقنا ما أنت ومارين تاريخية سوماليلاند waxay ugu suntanaan doontaa baal dahaba maanta ilaahay wuxuu ina gaarsiiyey guul weyn oo dhammaan Soomaaliland ku guuleysatay oo wixii Soomaaliland jecelna uu ku farxayo cadawga Soomaaliland uu ku jabayo ayaa maanta taariikhda qoraya waxaan hambalyeeyaa golaha baarlamaanka cusub ee maanta shaqadu bilaabmayso oo ducaynayaa inay hawshooda si qarannimo u gutaan waxaan hambalyeeyaa 6 murashax ee tartanka u galay 3 kursi ee hogaaminta baarlamaanka waxaan hambalyeeyaa odayaashii maanta maamulay arrinta ee uu kow ka yahay gudoomiyaha guurtida gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ama wakiilada baashe iyo gudoomiyaha maxkamadda sare go'aanada iyo talaqabeennimada iyo siday u xaliyeen mashaakilkii ka hor yimid oo shir walba mashaakil baa ka hor yimaadee habka qarannimada ah ee u maamuleen iyo cadaaladda aad iyo aad baa loogu mahadnaqayaa maanta odayaasha maamulay iyo xooghayntoodii iyo taariikhda ayna gaarsiiyeenna waa ku hambalyeynayna ilaahayna waa ugu mahadnaqaynaa qarankuna wuu ogaanaya hawsha ay qabteen waxaynu u mahadnaqaynaa golayaasha xubnaha baarlamaanka ee maanta fadhiyey golaha wakiilada ee cusbaa ee doorasho aad isugu dhow ku jiray sida gobonnimada leh iyo isdhowridda ee hadday saqar yar dhashay la isu qabanayay ee la isu aamusinayeyna quruxdaanu kaga soo baxnay maanta Soomaaliland oo dhan baa guuleysatay nin quri ma guuleysan xisbina ma guuleysan Soomaaliland oo dhan baa guuleysatay xildhibaanay tartamayay gudoomiyaha baarlamaanka cusub Cabdirasaaq waan hambalyeeynaa oo waa soo dhaweynaynaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad waa soo dhaweynaynaa waanu hambalyeeynaa gudoomiye ku-xigeenka saddexaadna waa soo dhaweynaynaa oo waa hambalyeeynaa gudoomiyihii la tartamayay professor Yaasiin waanu hambalyeeynaa tartan si dhow buu ahaa waa lagu talagalay waa dimuqraadiyad gacanta la taagay loo kala baxo sidoo u hambalyeeyay iyo waayeelnimadii muujiyana waa soo dhaweynaynaa Yaasiin qaranka in badan buu soo shaqeeyay haddana wuu shaqayn doonaa oo oday halkiisii fadhiya maantana gacan qaadkii iyo soo dhaweyntii aad isku hambalyeyseen qaranka u hirsan dhamaantiin waan kugu hambalyeeynaa Umar Jaamac oo in badan ku soo jiray mar soo bilaabay miidiyaha sharaad qori jiray haddana siyaasadda intaa ku soo jiray malaha deed caaqil ahaa talada wargii wax ku soo lahaa oo isla intaa soo halgamay maanta markii laga helay siduu Siciid u hambalyeeyay isagana waan ku hambalyeynayaa waana xeerkii Soomaaliland ugu yaqaan xildhibaan cali gudoomiyaha saddexaad waan ku hambalyeeynaa waana soo dhaweynayaa qodax oo intaa xisbi ku soo jiray oo siyaasadda ku jiray oo soo dadaalay gacanta markii la taagay meel may tagina Soomaaliland baa guuleysatay adiguna inaad hambalyeysay waan kugu hambalyeynayaa dhammaanteen waynu hambalyeynaynaa maanta waxaan aad iyo aad u hambalyeeyaa saddexdii la doortay halkan soo taagay saddexdii cusbaa ee golayaasha soo dhawaada gudoomiye hambalyo gudoomiyaha koowaad hambalyo gudoomiyaha saddexaad hambalyo intaas waa hambalyadii maanta waxaan leeyahay waa maalin Soomaaliland faanayso anoo magaciina Soomaaliland hadda ku faanayana cadawga Soomaaliland waxaan leeyahay Soomaaliland halkaasay gaadhay Soomaaliland cadawga qura ka soo horjeeda ee maanta xamar isla rafaraya waxaan leeyahay iyo inta af Soomaaliya ku hadashaba waa daawareyseen Soomaaliland dimuqraadiyadda ugu furfuran iyo tartanka ugu adkaa iyo qarannimada inay u midaysan tahay oo qof walba Soomaaliland qarannimada ilaalinayo cadawga Soomaaliland iyo inta lugta jiidaysa ha ku cibro qaadato
waxaan hambaleynayaa shacab weynaha Soomaaliland ee codeeyay ee maanta u taagnaa ee dhagta taagay dhammaantii waan hambaleynaynaa waynu guulaysanay talaabo hore u qaadnay qarankana waynu wadaynaa ilaahayna guushaayna gaarsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu